waxaan kaloo salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta laga dhageysanayaan haddii aan warbixin daabalkaas iyo sida la socoto howlgal guud ayaa ka socda dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Jubbooyinka waxay ka mid yihiin dhulka Soomaaliyeed ee ballaaran ee howlgallada muxuu ahaa lagula dagaalamayo al-shabaabka iyo dadka mataqaanaa ee dalka kusoo duulay ciidamo ayaa ka howlgalaya gobolada Jubbooyinka marka la yiraahdo marka waa dhul ballaaran weeye ciidamo kala gedisan ayaa ka howlgalayo Garbaharey waxaa ka howlgalaya ciidamada CFG iyo Sunna wal Jamaaca sidaas leeg Al Cabdi waxaa ka howlgalaya ciidamada CFG-da iyo ciidamada Kenya dhinaca kale Tabaxduun iyo meesha la yiraahdo Barjani iyo agagaarka Baadheer waxaa ku wajahan ciidamada CFG-da iyo ciidamada Kenya meesha la yiraahdo waxaa ka falsamaya ciidamada CFG-da iyo ciidamada Raskamboniinta la yiraahdo iyo ciidamada Kenya sidaas leeg qasax dheere iyo agagaarka Dinsor waxaa jooga ciidamada dawladda iyo ciidamada Ethiopia ayagana ka falsamaya marka falaaran dhowr meelood ayaa hadda dalku ku socdaa waxaa lagu jiraa qabanqaabada ama diyaargarowga ugu dambeeyay ee lagu sifayn lahaa dhulka inta ka hartay Jubbooyinka markaan ku sheegay marka qasax dheere dad ka fiiriso ama tafaxdo ka fiiriso ama Garbaharey ka fiiriso falaartan ay ku socoto dhinaca Buruuna aad ka fiiriso falaartan ay ku socoto dhinaca ku sheegay Jubbooyinka waad garan kartaa waxa dhiman inay wax yihiin Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa noo dhiman sida doofkii bay jireen intuu raabooda noo dhiman haddii la yiraahdo waan soo afkiri doonaa gobolada Jubbooyinka si uu dhaqsiinaa fada in badan waxaa jiray general in saxaafadda u sheegteen in deegaanada imika aad la wareegteen sida Qooqaani kuwa deegaanada ugu dambeeyay iyo Taabta oo dagaalada ugu badnaa ay ka dhaceen inaad ka sii gudbi doonaan oo ay ku sii wajahan yihiin magaalada Kismaayo arrimahaasi maxaa hakiya howlgalladii ay wadeen ciidamada Kenya iyo kuwa dawladda isgarabsanaya Raskamboniinta maya waxa kale ma lahan wax waa howlgal weeye howlgalna wax sahlan ma ahan wax loo diyaar garoobayo weeye sabab socoto haatan hal dhinac baad ka waramaysaa oo Qooqaani iyo Afmadow iyo Kenya iyo CFG iyo Raskamboniinta oo dhinacaas kaliya ka waramaysaa howlgalkan waa howlgal igaad ee wato howlgal midaysan howlgal baaxadiisa ballaaran tahay howlgal ugu sifaynayo dhulkan Jubbooyinka la yiraahdo gaar ahaan ciidamada baydhabo joogo oo CFG-da iyo dawladda Ethiopia darskanahay laga soo bilaabo falaartooda oo midig aadayso iyo kuwan kale oo Kenya oo bix ka soo soconayo iyo qorraxda xaggeeda ka soo soconayo oo isku falaar ah waa dhulka Jubbooyinka lagu sifayn doonaa oo howlgal aad iyo aad loo qorsheeyay ballaaran aadna u ballaaran dicina doono loo diyaar garoobay waa gartay dhinaca kale waxaa jiray in maalmihii u dambeeyay ay jireen weeraro ururka al-shabaab ay ka geysanayaan deegaanada ay ku sugan yihiin dawladda iyo sidoo kale ciidamada Ahlusunna sida deegaanka Luuq oo kale gudoomiyay habeen dhaweed la weeraray Garbaharey laftigeeda weerar ayaa ka dhacay arrimahaasi marka idinka ciidamadiinu haddii aad gobolka ATC badneed ku sugantihiin maxaa xalinaya inaad amniga sugu weydaan maya weerar iyo waxay kala yihiin gaadmo waxaad ku qaldaysaan laba soo dhuumatay ama saddex soo dhuuntay tan waa fulin karaan meel ama goob cayiman tan waa ka fulin karaan wax weerar la yiraahdo al-shabaab waa ugu dhamaatay sida la socotaanba istiraatiijiyada horena ayaga laftirkooda ay cawada ka sheegtayoo istiraatiijiyada hore ay dagaalka way bedeleen waxaa ku dhufo ka dhaqaaq iyo miino la qarxiyo iyo guri mataqaanaa muxuu ahaa meel la qarxiyo iyo baabuur lasoo miineeyo iyo wax saas ah weeye ma aha wax weerar la yiraahdo Luuq baa lasoo weeraray dad tiraahdo Garbaharey baa lasoo weeraray dad tiraahdo waxa weeye waa magacaada aad bumbuurinaysaa iyo weerkaanaysaa laakiin ma ahan wax weerar la yiraahdo oo Luuq lagu soo qaadayna ma jiraan Garbaharey lagu soo qaadayna ma jiraan laakiin baabuur meel marayo jidkooda loo dhigay iyo maxaa la yiraahdaa saddex afar soo dhuumatay oo mataqaanaa goob cayiman mataqaanaa falka bulshada iyo waxyaalo saas oo argixisada isticmaalaan waa suuragal laakiin waxa la yiraahdo kafool weerar filmayo kullu bishii May iyo bishii Abriil oo hadda la soo dhaafay wixii ka horreeyay dawladda ka dambeeyay kafool al-shabaab meel soo wareynaysa jirin min galgaduud oo soo bilaabo ilaa cirka ugu dambeeyay ee Raskamboniinta la yiraahdo inta wadallada ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada mataqaanaa Amisom iyo ciidamada ka socdaan ee Sunna wal Jamaaca hadday yihiin Raskamboniinta iyo hadday yihiin CFG-da iyo dawladda dariskanahay ama Amisom ha ahaadaan ama dawladda kale ha ahaadaan inta ay haatan howlahaas ka wadaan ma u malaynayo inay jiraan weerar al-shabaab ay soo qaadeen oo kafool ah haddayna idaacadaha bumbuurineen
waan gartay waxaa jiray duqeymo ka dhacay jubbooyinka sidoo kale habeenadii u dambeeyay dad badan oo shacaba ayaa ka cabanaya arrimahaasi maxaad kala socotaan duqeymahaanse ma waxay ahaayeen goobo lagu bartilmaameysanayay xarumo lagu tuumiyo ururka al-shabaab sidoo dad duqeyn maqasho waxa la duqeynayo waa barcaymo weeye waxa lagu duqeynayo waxa weeye qalab casri ah ma ahan adiga hadda gurigaad ka hadlayso guriga ku xiga hadday ku jiraan wixii loogu talagalay ama yoolka loogu talagalay waxaa laga yaabaa aduu gurigaada ka hadlaya hadda ka warramaya kan ku xigin oo laga fushado oo uusan gurigaaga wax nabad ah iyo wax dhibaato ayna soo gaarin duqeynta caalamiga ah ee howlaha ugu waran waa duqeyn noocaas oo kale weeye oo teknolojiyada casriga ayaa noo muxuu ahaa ayaa u saamaxayso waxaa dadweynaha dugta hadday maqlaan way iska cabanayaan oo dug uma waroona ilmo yarayna iyo haween iyo ciyaal iyo meel jooga dug uma waroona sideedaba ilaahay ha ka dulqaadan laya ummadda soomaaliyeed laakiin bartilmaameedyo cayimo weeye waxa la duqeynayo ma ahan meel kasta iyo magaalo kasta la duqeynayo gabagabadii dhinaca kale waxaa jiray shirar ka socday maalmihii u dambeeyey Nairobi oo maamul loogu sameeyay jubbooyinka iyo gado arrimahaasi maxaad kala socoteen idinku haddaad tihiin saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolada ku sugan gado iyo jubbooyinka waan la soconay shirarkaas waan ugu casumay igad baa muxuu ahaa martiqaadka iska lahayd waxaa kasoo horgalay 5 maxaa la yidhahdaa urur oo mataqaanaa lagu casumay ahlusunna waljamaca lagu casumay waxaa lagu casumay TFG-da waxaa lagu casumay raaskamboniyiin waxaa lagu casumay azani niman hore loo dhihi jiray waxaa lagu casumay niman kaleto oo gruub ah 5taas gruub markay isu tageen waa 5 gruub oo marka hore oo si u kala koreysaa loo kala qaadaayo dhulkan jubbooyinka iskaga hor imaan jiray oo mataqaanaa dagaalada badan ka samayn jiray si kastaba ahaatee si ayna u dhicin waxyaalihii hore u dhici jiray oo markii ama kismaayo la qabto ama meel isugu tago lagu kala bixi jiray oo iyadoo mataqaanaa shaar dawlad la wato ama shaar kale la wato haddana qabiil wanaan jiray si ayna u dhicin waacidaas la kala sheeganayo sidii loo midan lahaa oo waxyaalo badan oo maamulla oo fara badan oo jubbooyinka sheeganaya si aad la socotaanba jubbaland madaxweyne sheegatay kuwo kaleeto jubba raas la yidhahda madaxweyne sheegteen kuwo kaleeto oo jubba taali la yidhahda madaxweyne sheegteen kuwo kale jubba raas la yidhahda madaxweyne sheegteen azaniya madaxweyne sheegteen waxyaala sidaas si ayna u dhicin iyo waxaa laisugu keenay ama iyagad muxuu ahaa garwaaqsatay in ciidamadana la mideeyo wax maamul oo loo midaysan yahay oo lasoo ogolyahyna la sameeyo oo magaca lagu midoobo hal magax uu noqdo halkaas magax oo lagu midoobana laiskugu yimaado ciidankana lagu midaysto si aanan rabas dambe iyo shido dambe unagu soo noqon dhulkan jubbooyinka waanan tagnay wejiga horena waan muxuu ahaa waan soo aragnay wixii dambana waa la dhamaystiri doonaa hadduu la yidhahdo marka wejiga hore maxaad isku soo afgarateen aad ku soo heshiiseen waxaan isku soo afgaranay in magacyadii farada badnaa oo la kala sheegan jiray oo nin kasta sumadintu meel kudhisa magacyada baa la yidhahdaa uu dhihi jiray in meel aan iska dhigno oon hal magac isla qaadano magacaas oo guddiga farsamada oo aan iska soo saarnay ay noo soo sheegi doonaan islamarkaasna ciidamada aan midaysan doono hal maamul goboleed oo mataqaanaa lagu midaysan yahayna la hagaajiyo maamul goboleedkaas oo hoos tagi doono dowladda magaalka Soomaaliya islamarkaana mataqaanaa uu ogol yahay dastuurka muxuu ahaa Soomaaliya ogol yahay maamul goboleedkaas oo yeelan doono 3 awoodood lagu qaysan jiray maxaa la yidhahdaa sida awoodda fulinta midda sharci dejinta iyo midda mataqaanaa hada 3 awoodood u dhamaan doonaan islamarkaasna haatan guddi farsama la soo sameeyey guddigaas farsamada wuxuu soo hagaajin doonaa ajandayaasha lagu hadli doono shirweynaha inkastoo shirkaas dad badan oo idaacadaha ka hadlahayo meel kastaba jawaan ay aaminsan yihiin